kuwa caawa markuu qolkiisa hoosta ka xidho moobilka sidaa u sii fiirinaya caawa dhan qof moobil fiirinayay oo 2 iyo 3 habeennimo seexday muxuu goobaha imtixaanka saak bari subax la tagayaa waaye muxuu akhriyayaa de Facebook iyo WhatsApp lagu qorayaa meesha waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baadina waxaynu isu dardaarmanaa cabsida rabbi subxaana wa tacaala maalmaha koobanaynu noolahay qof walowba rabbi subxaana wa tacaala waxaad ka cabsataa intaad u jirto iyo qalbigaaga waxa ku jira ee cabsi iyo iimaana waxaynu la soconnaa isbuucan soo socdaya wixii ka dambeeya waxay qaabili doonaan daayarta iyo goobaha waxbarashadu imtixaanaadkii la oran jiray teerabka ama sanadka barhkiisa la geli jiray insha allahu tacaala kelmadan waxaynu dardaarama ku siin doonaa 3 qolo bulshada ka mida qolada koowaad waa ardayda qolada labaadna waa macallimiinta qolada saddexaadna waa waalidka bulshaduna 3 qaybood bay qaaliban ka kooban tahay waa marka koowaad waxaynu leenahay ardayda qodobka koowaad in rabbi subxaana wa tacaala cabsidiisa ikhlaas iyo camal iyo taqwo in la kaashado oo rabbi subxaana wa tacaala waxaad qabanaysaan waxaad qaybaysaan waxaad diyaarinaysaan dadaalkan faraha badan iyo juhdigan iyo soo jeedkan iyo wax akhrintan waxaad kaashataan rabbi subxaana wa tacaala ikhlaaska ilaaliyo ku dadaala waayo camal walba oo ikhlaas laga waayaa ma anfacayo saaxiibkii baa nebigu tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayh marka labaad waxaynu leenahay ardaydan weli ku jirnaaye xilliga waqtiga mudaakarada iyo waxifdinta waxaad samaysataa jadwal kadibna waqtigaaga kala qaybqaybso ha isku dilin soo jeed iyo wax aqrin fara badan waxaad samaysaa xilliga tandiimi waqti aad wax ku xifdido waqti aad markaa ku cibaadaysato ayaynu aad iyo aad isugu dardaarmanaa waqtiga kama soo hadho waxbarashada iyo xifdiga iyo wax aqrintu waqtiga kama soo hadho haddii waqtigeenni moobila ay qaataan oo moobiladan la salaaxayo lagu mashquulo ama soo jeed dheer lagu mashquulo waxaa dhalanaysa markaa imtixaankii natiijo wacan inaan la keenin laakiinse haddii waqtigaaga aad kala qaybsato jadwal wiil iyo gabadh walbaaba ay samaystaan kadibna rabbi subxaana wa tacaala kaashadaan waxay akhriyi karaan akhriyaan oo ay diyaariyaan waxaa ka dhalanaysa wax fara badan inay markaa sameeyaan oo wanaagga ay gaadhaan waxaynu idin dardaarmayaa qodobka saddexaad in rabbi subxaana wa tacaala tala saarashadiisa lagu dadaalo wax walbaad qabanayso iyo wax walbaad samaynaysaba rabbi subxaana wa tacaala inaad tala saarato inna kulla shayin khalaqnaahu biqadar qadarka rabbi subxaana wa tacaala baa go'an si walbaad u dadaasho si walba oo aad u soo jeedo si walba oo aad wax u akhrido waxaan rabbi kuu qorin ma soo qaadaysid haddii aadan wax akhriinna meel rabbi kuu qoray ka hadhi maysid sidaa daraaddeed qadarka rabbi subxaana wa tacaala tala saarashada rabbi subxaana wa tacaala in lagu dadaalo waana asbaabta mashruuca ee la rabo qofku isagoo dadaalaya ninkii nebiga u yimid sal aleh wasalam awrkayga miyaan xidhaayoo rabbi baan tala saartaa mise waan sii daayaayo ilaahay baan u tala saartaa awrkaaga dabre baa nebigu ku yiri sal aleh wasalam rabbina u tala saaro sidaa daraaddeed adoo wax akhriyaya adoo wax mudaaracaynaya adigoo markaa ku jira waxaa la yidhahdaa maxay inaad dadaalayso ha isku hadlaynin awooddaada iyo dadaalkaaga iyo xifdigaaga ee tala saarashada rabbi subxaana wa tacaala waa qodob muhiima waxaynu isugu dardaarmanaa ardada leenahay inuu qof walbaaba qofku keligii far keligii fool ma dhaqdee inuu la saaxiibo dad qof kaa xifdi badan kaa cibaado badan masaajidda kaa jecel salaada xilli hore kaaga kaca qofkaa la saaxiib waxaad ka faa'iidaysaa inuu ku jido oo ku wado oo xilliyo fara badan aadan adigu kiciba jirin uu ku kiciyo laakiinse haddaad adigu marka horeba hooseeyey aad mid kaasii hooseeya la saaxiibto waxaa ka dhalanaysa inaad markaas salka isla gashaan sidaa daraaddeed qofkaad la saaxiibayso waa inuu noqdaa mid kaa horeeya soomaalidu waxay tidhaahdaa
dabkii baxaya dab lagu qabsadaa mid kaa horeeyo kaa cibaado badan kaa daaca badan kaa quraan akhrin badan goobaha cibaadada kaa ilaalin badan masaajidka ku nagaanaya khayrka kaaga dheeraynaya la saaxiib markaasaad adiguna noqonaysaa mid soconayo markaa waxigsanaya awrba awrka ka horeeyu sanqaadkiisa leeyahay ayay soomaalidu tiraahdaa qodobka shanaad waxaynu ardada u dardaarmanaa cadamu sahri wa khaasatan fi ayaami ikhtibaaraat soo jeedka faraha badan in la iska ilaaliyo haddaad caawo dhan tiraada waxbaan akhriyaya waa soo jeedi oo caawo dhan seexan maayo kafay baan cabi ama wax kale aan isticmaaliyo hurdada kaxeeya subaxii marka la gaadho waxaad ogaataa madaxa ku xanuunaya wixii aad xalo dhan akhriyaysana wax fara badan oo xasiilaahay ka imaan maayaan sidaa daraaddeed marka koowaad habeenkii niska hore ka seexo niska hore habeenka seexo habeenku waa 3 nis labada nis ee dambe kac haddaadan awoodina niska ugu dambeeya kac markaad 2 ragcadood ama wix ilaahay ku qadaray tukato markaad cadayato weysato tukato rabbiga aad barido xilligaasi waa xilliga rabbi soo dego waa marka koowaad waa xilliga ilaahay 3 kelmadood oo dhihi doono yaa baryayaan ka ajiibaya wax weydiisanayaan siiyaa yaa dambidaaf rabaan u dambidaafaa waa marka koowaad ee baryadaad iyo imtixaanka ku haystiyo dhibaatadan aad markaa hawshan ku haysata xilliga qaabil waa marka kale waa xilliga maskaxdu ay degan tahay maantoo dhan waxaad xifdido 12 saac ee maalinimo waxaa ka xasiilo iyo badan iyo ka ridhiisa badan waxa la yiraahdo saacadda habeenka ugu dambeeya waxa la xifdiyo maskaxdu way degan tahay way soo toostay mashaakil fara badan ma haystaan wax fara badan kama fakaraysid xilliga in gaar loo ilaaliyo aad iyo aad baynu u dardaarmanaa waalidkuna inay kiciyaan oo markaa u dadaalaan iyagana waa dardaarmanaa waxaa ka mid ah waxyaalaha muhiimka ee la rabo inaan isu dardaaranno inuu qofku naftiisa ku kalsoonaado inuu iska ilaaliyo qishka inaad ka cararto intaad awoodo qof kula mid adiga oo isku kalaas ahaydeen oo 9 bilood ku wada dhalateen oo waxba ku dheerayn wuxuu soo qoray inaad marba mid leexdo waxay ku tahay dibdhac weeyaan inaad naftaada ku kalsoonaato waxaad qaban karta qabato wixii aad qaban kari weydana fattaqullaha mastadactum adigu dadaal وحفظي وحقري قفكان وحبا كما ديرا sidaaduu 9 bilood ku dhashay hooyo aabba dhalay qof walba markuu dhalanayay wallahu akhrajakum min buduuni ummahatikum la ta'lamuuna shay'an inna ilmiga kuma dhalanin nabi maxamedna ku dhaw sallallahu alayhi wasallam saadaradeed qishka in laga cararo oo laga fogaado oo ardaydu ay naftooda ku kalsoonaadaan haddaad qish ku baasto qish meel ku gaadho oo darajo waxan ku keento bari marka heeraad gaadhana maqish baa doonaysaa waxba ma jiraan saadaradeed qishka in laga cararo nabiguna xadiiska muslim waa tuu tilmaamayay man ghashana falaysa minna qofka naqishoona qiyaameeya naga mid maaha baa rasuulku tilmaamay salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaynu dardaarmanaa ardaydan weli ku jirnaaye imtixaankan aad gelaysaan ee ikhtibaarkiisa aad diyaarinaysaan ee dadaal fara badan uu ka muuqdo sidii hore aan ahayn oo masaajidda guruub loo fadhiyo oo sheekada dhalinyaradu u fara badan tahay inaad uga tusaale qaadataan imtixaanka aakhire ku sugaya imtixaankani haddaad baastana hebel baa tahay haddaad dhacdana hebel baa tahay wax ku gaadhayaa ma jiraan adduunka unbaad meel ku gaadhi laakiinse imtixaanka maalinta qiyaame rabbi hortii la geli doono qofka maalintaas saaqida ama maalintaa wax garan waayo wixii laga rabay laga waayo xaaladiisu aanay faraha ku jirno khasaaro dhaba oo kaba dambaysa uu ku dhacayo imtixaanka u dadaal oo imtixaanka uga qaado imtixaankaasi ku laabasho male kan haddaad dhacdana sanadka dambaad baasi oo dib aad ugu noqon doontaa laakiinse maalintaa rabbi aad hortaagan tahay haddaad dhacdo waa wax ku sugayaa waa naar iyo wax ka sii xun weeyaan sidaa daraaddeed in aad iyo aad loo dadaalo oo aad iyo aad loo ilaaliyo waxa la yidhaahdo nafteenna aynu ku xidhno ikhtibaarka aakhire inaad uga tusaale qaadataan waa qodob muhiima waxaynu isu dardaarmanaa walaalayaal weli ardaydan ku jirnaaye waxyaalaha diintu ay ku qoran tahay
gaar ahaan kitaabada iyo tarbiyadda kitaabadan iskuullada lagu dhigay tarbiyadda iyo wixii la halmaala in kitaabada diintu ay ku qoran tahay la ilaaliyo cilmigo dhan baa ixtiraam u baahan haddana gaar ahaan kitaabka rabbi subxaana wa tacaala iyo sunnada nebigu buug haddaad ku qorto warqad haddaad ku qorto haddaad wax kale ku qorto hadday kitaabkii ku yaallaan ixtiraam bay u baahan yihiin rabbi subxaana wa tacaala ha looga xishoodo oo ha la ixtiraamo kitaabada rabbi subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh qodobka ugu dambeeya sideedaadan ardada leenahay waxaa weeyaan samafalka waalidka lagu dadaalo waalidku wax weyn buu ka yahay ilmihiisu meeshuu gaadho ilmihii waalid soo habaaray ama waalidkii markuu guriga ka soo baxayay uu markaa soo hujuumayay iyo kii loo soo ducaynayay weelka biyo kama wada cabbi doonaan sidaa daraaddeed adoo waalidka u soo duceeyey hooyo ka soo ducaystay aabbe ka soo ducaystay maskaxdaadu degan tahay wax soo diyaarsaday ducadooda kugu dhacayso inaad guryaha ka soo baxdaan waa isku dardaarmanaa qolada labaad aynu fariimaha u diranaa waa macallimiinta iyo mudarrisiinta rag iyo dumarba waxaan leenahay macallimiinta ammaano weyn baynu haynaa ammaano weyn baa gacanteenna saaran ammaano aad iyo aad u weyn baa gacanta lagu hayaa ammaanada rabbi subxaana wa tacaala in looga baqo oo ilaahay la xasuusnaado waa qodob muhiima 3 xaaladood macallinku inuu ammaanada ilaaliyo naftiisana uu ilaaliyo ilaahay ka cabsada waa xasuusinaya xaaladda koowaad xaalatu wadci limtixaanaat imtixaanka markaad dejinayso maaha su-aashii kaa soo horbaxdaba iska qor imtixaankaagu wuxuu u baahan yahay inuu qaybo ka koobnaado dadkani ma sinna caqliyan iyo jismiyan iyo caafimaad ahaan iyo cilmi ahaan uma sinna qaar baa hooseeya kuwaa sarreeya kuwaa meeldhexaada imtixaankaaga macallin waxaa la rabaa 3 qoloba nin walbaaba nasiibkiisa inuu ka qaado haddaad keento imtixaan haya oo xagga sare keliya markaa ku tacalluqa kuwa hoose dulmi baad ka gasheegow imtixaanku inaanu noqon mid hooseeya oo fudud oo qof walbaaba biyo ila liqa kaana waa ka dardaarmanaa sidaa daraaddeed marka la dejinayo ee su'aalaha la qorayo adoo sida awlaadaada oo kale ka soo qaadaya qalbi naxariisanaya oo xanuuna oo naxaya adoo ku qoraya waa qodobka koowaad qodobka labaad weeyaane xaalatu tasxiix imtixaanka marka la saxayo waa marka macallimiintu ugu hawl badan yihiin ardadan waxaa laga yaabaa macallinku inuu soo qaado 200 waraaqood ama 10 waraaqood ardadani ma sinna qaar baan fartoodaba la akhriyi karinba waxay meesha ku qoreen qaar baan la akhriyi karin kuwa markiiba si wacan u qoraya maaha kuwa wacana inaad saxdo kuwa kalena aad tiraahdo alla uga gee